gaarsiiyay ilaa 13 qofood oo goobta ka agdhowaad iskaas dhaawaca iyo dhimashadu waxay isugu jiraan shaqaalihii hoteelka iyo dad shacab ah oo goobta ka agmarayay iyo arkagixisadii iyagu soo abaabulay qaraxa inuu meesha khasaarahaas ka gaarsiiyaan saas oo kaleeto waxaa jira burbur hantiyeed oo soo gaaray hoteelka iyo gawaaridii shacabka ah oo jidka ka agdhowaa agaarka marayay howlgalka oo xoogaa yar dheeraaday wuxuu soo gaaray ilaa 10kii fiidnimo sababta uu nolo dheeraadana waxay ahayd in aan yarayno isla markaana aan ka taxadirno inuusan khasaaruhu intaasii dhaafin oo khasaaro badan meesha uusan keenin hoteelku wuxuu ahaa hotel dad shacab ay isugu yimaadaan oo loo soo shaarsado marka ujeedka argagixisaduna keliya wuxuu ahaa inay khasaaraha ummadda kordhiyaan waxaa hoteelka laga badbaadiyey dadweyne gaaraya ilaa 300 oo qof oo isugu jira dad shacab ahaa iyo shaqaale dawladeed oo hotel ku sugnaa aad aan mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fayinka booliiska Soomaaliya gaashaale صديق آدن دودش وكاسي أها وكو هاللي سده أي وحقو دعين hotel كإليت مقالة مقدشو أو شنطة كديف لسوق بجبي وركي أوركا الشباب عاوي كسوق قادين هل كان hotel كإليت مقالة مقدشو في لمبة إن في أنت أو هل كان كل هذه الدولة بدون مكحجين كان أمني السياسة قبل كبنادر محمد عبد الله